الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وفرقي شناد بان فيليا أن يسوقون لبعضنا إلهنا حان قبل يا سبحانه وتعالى كل كان إنه خير كدقه كلا تجا إن كدبنا وإن حفظي لبدا دارود با سيدي عادة هيد ما دام مركز تظهر لنا يمادان هبين كهوري شوقين لغاية أبو مر لبعض وحن حسوسين إياه قف ولبا إنay tahay aan rajaynaya dadku inay wada xaqdoon yihiin ama ay sidaas tahay sida laga rabo inay wada xaqdoon noqdaan. xaqa garashadiisa iyo raacidiisa in qof muslim iyo xaqa raacidiisa aanay cadaawad iyo xumo ka dhaxaynin, waxaan loo cibaadeysanayana xaq in la raaco dariiqa rabbi la raali geliyo la doonayo, taana asaas ay u tahay shahaadooyinkan la qirayo habeen iyo maalin iyo cibaadaadka la samaynayo. laakiin ay dhici karto qofku isagoo xaqdoona si ibn Mas'uud uu yiri wa kam min muridin lil khayr la yusiba badana inta wanaag doona laakiin jidkiisii aan haynin. ilaahina xataa gaalada qaar kamida uu ku tilmaamay inay xaq doonayaan iyagana ay la tahay inay wax fiican samaynayaan laakiin wax ka qaldan yaho wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca, iyagoo u malaynaya inay samaynayaan wax wanaagsan oo shirkiga haddana ku jiraan. arrintaasi inay noqoto arrinta asaaska u ah dadka dhammaantood oo waxaa loo yidhahdaa marka la hadlayo ama la dhegaysanayo qofku inuu xaqdoon u hadlo iyo xaqraadis, xaqdoon iyo xaqraadisna u dhegaysto. marka taasi waxay keenaysaa wixii xaqana in la qaato, wixii qalad ana laga leexdo. mar labaad waxaan leeyahay dadka u malaynaya iyaga in loola jeedo ama dadka kitaabkani kitaab fiican uu leeyahay ama arbacada qaadee akhriyee nafacana allaahu bihi yiraahda, kitaabka aan ka hadlaynay hadduu yahay kitaabkii qiimahan xalay soo sheegnay dadka agtiisa qaar kale annaguna aan ku doodayna waa wax ka baxsan diinta islaamka dhammaantiiba oo diinta ilaahay ay beri ka tahay, sida waraabihii ama yeydii dhiiggii nebi yuusuf lagu tuhmay inay cuneen ay beri u ahaayeen. aan soo iri haddana ku celinayo kitaabka nin fahansan oo rumaysan isaga iyo qur-aanka ilaahay isuma keeni karo. shahaadada ilaahay iyo rasuulka la qiro sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo kitaabkan oo la rumeeyo isku meel ma mari karaan. laakiin dadku waa cajam, carabigii ma yaqaanaan. alfaada qaarkood haddii la arkana waxa looga jeedee fanniga qowmkan iyo erayadooda kutubtooda ay uga jeedaan in badan ma dhacsana. inna waaba la cabsiiyeyo waxaa lagu yiri laba laqbeeyo 40 ilaa aad gaadhana kitaabka lama kala furo, tahaara la'aan lama qaado, qur-aanka lama hoos dhigo. isaga qur-aanku laba aaro libaaxo aarka wax libaaxa ninka la yiraahdo isma raad qaadaan. warka lagu akhriyay waxayna soo martay waqti loo yaqaan culimada ninka manaaqib iyo mawlidka yaqaana. mawlidka rabiic al-awwal baa ilaahay hadduu ina gaarsiiyo waad arki doontaan inuusan wax badan kan dhaamin. kitaabka mawlidka ee dabiiciga barzanjiga isna waa idin hor keeni doonaa inta ilaahay hadduu cimri lagu gaarsiiyo kan waxba ma dhaamo. laakiin sidiisa uma cadcada waxbaase badan baa idinka taabsiin doonaa haddii alla yidhaahdo. kitaabka sidaan aan ka hadlayno dad ma xukumayno, dadku in badan baa cudurdaar leh, gaar ahaan dadkan cajamka ee soomaalida aan carabi aqoonin. waagii hore wax kastoo carabiya diin jacaylko madaxa la saari jiray wuxuu dooniba ha noqdee. laakiin hadda waxaan ogaanay kaniisada af carabi ku qoran yahayo kuwa aan ilaahay iyo aakhirada rumaysnayn oo mulxidiin la yiraahdo af carabi wax ku qoraa jira. hadda marka waxaan ku baraarugi karnaa waxyaabaha carabiga ku qoran sax ma wada aha. innaga laakiin waxaan soo gaarnay waqti wixii carabi ku qoranayna soo gaara wax islaam iyo diinun ka sheekeynaya inuu yahay wax badan baa laynoo hoosgeliyey. muxaadaradan sixirka kaga hadlayay maraan ka hadlayay
baa waxaan ka hadlay iyadana kutub badan oo fanni dhan ah oo dadka diin baa ilaahay geliyey iyo culimo looga dhigay oo ka bilowda macsharul falaga mujarabaadka dayrabi alkabiir axmed dayrabi alkabiir ninka kitaabka la yiraahdo awfaaqa shamsul macaarifka saacatul khabarka kutubu talaasimta inay fanni iyo diin gaar oo sixir yihiin baan kaga hadlay haday munaasabadeeda timaadana ilaa waan hayaa kutubtii lafteeda kaamirada iyo shaashada hortiinaan keeni doonaa inaan cadeeyo inta waxaan uga dan leeyahay dadka in badan baa looga sheekeeyay oo la cabsiyay kitaabka wuxuu yahay aan waru haynin waxaan uga dan leeyahay dadku inay ogaadaan waxa carabtu yiraahdaa maada waraa al-akama buurtan gadaasheeda maxaa ku qarsoon oo ku dhuumanaya dhaqdhaqaaq iyo mudutuulun baa la arkaaye meeshan waxa hoosteeda ku jira markaan kitaabka caawa aad wax badan aragtaan baad ogaan doontaan ninka kitaabkan haystay inuu diin islaam haystay iyo diin wathaniyo oo shirki inuu haystay markaas aad kala ogaan doontaan laakiin qofku waa mushrik idin ma dhihin waa wathanina idin ma dhihin marar badan baan ku celceliyey ashkhaas iyo kooxo iyo magacyo maanan xukumin ummadda in badan baa cudurdaar leh ciddii hadalkayga wax ka tabata inaan garnaqsadaan diyaar ah ninkii qaab cilmi uga hadlaya wax isku aadin kara inaan makarafoonka siiyaan diyaar u ahay kadib waxaan isleeyahay wuu qalday waan ka daba hadlaya ka aamusi maayo waan ku soo dhaweynayaa ninkii waxaan qalday iga saxaya waxaan ka rajaynayaa wixii aan saxo ama inaan qalday aan la cadeyn karin in la iska daayo mawduucay hadaan soo laabto xalay baan kitaabka soo bilownay waqafaadkeeni qaybtii ugu yarayd baynu ka hadalay oo nidi waa kalimaadaan kufri wada gaaraynin laakiin inay dambi iyo fuxshi iyo jariime wixii laga fogaaday yihiin ay sariix wada cad tahay way qaybta labaadi haddaad ogaateen intaas inay ku jirto xalay 7 tusaale aan idin soo siiyey qayb labaad oo taa ka sii yar khatarsan baan uga gudbi qaybta waxa weeye kitaabkan kalimaadka kufriga sariix ah gaalnimada cad ee kitaabka ku qoran een geedna lagu soo gabanin qof kastoo asaasiyaadka hoose islaamka yaqaanana oo garan karo waxani gaalnimo cad oo geed lagu gabanin ay tahay kitaabkani dhowr tusaale aan idin ka siin dhowr tusaale baan idin ka siin qaybtan labaadna qaybta koobaad wuxuu leeyahay aadamaha sidoodaba ilaahay nuurkiisa laga abuuray ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu inoogu sheegay aadamaha dhooba in laga abuuray sooma oo wuxuu yiri inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Adam Isa qisadiisa Allah yaabantiin aba ma dhalin leedihiin Adam baa wala abuuray aabaha dhalay Adam baa Ilaahay dhooba ka abuuray kadib ahaw aadama la yiri uu noqday marka Ilaahay wuxuu leeyahay walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin dhooban ka abuurnay walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun quraanka intaasoo jeerso laguma sheegin aadam dhooba in laga abuuray qolaa wuxuu ilaahay quraanka arrin kale inuu sheegay ummadii hore kamid ah luntay oo mushrikiin ahaa baa waxay rumaysnaayeen ay dhihi jireen ilaahay iyo jinka dhalasho iyo waxba ka dhaxeeya waxbay wadaagaan ilaahay baa quraanka arrinta ku sheegay waja'aluu baynahu wa bayna al-jinnati nasaban ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوه حيالا بينه الله وبين الجنة جنك إنه يودحيس النصبا dhalasho iyo abtirnay wadaagaan ay meel iska soo galaan xiriir gaara bay rumeeyeen jacaluu bimaana i'taqadu way jacala bimaana i'taqadana wa macaanideedii kamita waja'aluu al-malaa'ikata alladhina hum 'ibaadu ar-rahmaan wa hayu aqidiyeen inaathan lidii bi i'tiqadiyeen qolada warkii lagu tilmaamay ilaahay wuxuu yiri subhanallahi amma yasifun ilaahay waa ka hufan yahay oo waa ka dahiran yahay waxa ay tilmaamayaan jin baa dhalasho ka dhaxaysa
kitaabkan wuxuu leeyahay aadamaha insaankaba nuur ilaahay baa laga abuuray aayaadkan oo dhan waa beeni haddaad moodaysaa inaan been ka sheegayo waxaa la soo baxdaan beejka shanaad كاوا إيران قوقعين سام قد يبقى بالفو قوقعين بيتك أفراد صدرك قدام بيا هلك حدكت كتالا كسو باللعبة ثم سألت يا ربي من أي شيء خلقت الملائكة ثم سألت وحان ويدي إلهي يا ربي يوم من أي شيء وحسد أهباد خلقت الملائكة ملائكة كعبورتي قال لي إلهي بأيوه ويكون بأنا برانا يانا شعب القادر بأيره بإليهن مركلا عن حسوسية مناسبة كتاب شعب القادر ماله بريبونا كي يهمنا يالان كرو لكن متبين لو أكوا بأنا بورتي إلهي بأيره يا غوث الأعظم قرقاره وينايو وركب بيانتا على قازوكا بالله خلقت الملائكة ملائكة وحن كأبوري من نور الإنسان آدمها النور كيسا لغا أبوري وخلقت الإنسان آدمها وحن كأبوري من نوري أنا النور كيغان كأبوري بالله عليكم ووركنا الرنا مثل آيات في القرآن كان قادنا إلهي إنه هذا عيد بالله أبوري آدمها يضوب وذات كنا نيرا هذا إلهي آدمها النور كإلهي بالله أبوري وركاسي ورعلوس وخطر صوما انت هدي لغا هارو وركو حده لهيدين هذا البيك كين لهيين سيوت ثم قال لي كذب وحي يقول يا غوث الأعظم قرقاره وينايو جعلت الإنسان أني وهدان ربي قاقي أهي آدمها وحان كدقي مطيتي قديد أنصار رهي وآدمه إيه وجعلت وحان كيا لسائر الأكوان أونك انتي سكالنا مطية قديد بان له للإنسان آدمها وكدقي أن آدمها قديد أنصار رهي انت آدمها انت كالودن با قديد ساري أيوه ثم قال لي كذب وحي يجري يا غوث الأعظم قرقاره وينايو نعم الطالب متك وحرادين يا وحا والنعم له وفي عن أنيقا والنعم المطلوب متك للرادين يا لدون ينا وحا هو ناكسن الإنسان آدمها ونعم الراكب وحصار حصارا وحا وفي عن الإنسان ونعم المركوب له وحو ساريه هنا وحاوفي عن الأكوان وكونك ساريه ثم قال لي كذبنا وحي يجري يا غوث الأعظم قرقاره وينايو الإنسان آدمه سرت إذا قرصون وي وأنا سره أن سرتي سقرصون بنا لو عرف الإنسان آدمه هدو أغان لها يوقران لها منزلته درجتيس عندي أكتايدا لقال وحده لها في كل نفس من الأنفاس ناف كستون نافيه سو نافسنا يا كامدا لمن الملك اليوم ساسو إلهي سو آخر إلهي بعده لمده لمن الملك اليوم جوابته لله الواحد القهار زوما يا بقرة النبارة إسكاله والله تقراع لها هذا كان واجوج الحاد ولي ضاد عمينا قارين وحبا انت لو جوجل حاريا آدمه هو إله الله تعالى الربا ورك جوجل دعية سانسان في فعلها دوار ركتا صوما لجيسو ثم قال لي كذب وحوي يقول يا غوث الأعظم كرجاله وينايو ما أكل الإنسان آدمه معن شيئا وحبا معونه وما شرب معبه وما قام ما استاغه وما قعد ما فريسته وما نطق ما هدله وما صمت ما آموسه وما فعل ما سمايه فعلا فل سمايه وما توجه لشيء وحبنكم تهيسته مقابله وما غاب عن شيء وحبنا كمان مقناده إلا هدي انت مذي دعذا وأنا أنيقو الرب أبا فيه ساكنه كل حجرة
ومتهدجية ومتحركه الأغرقاتية كو ثم قال لي وحكدي بحولي يا غوث الأعظم قرقار وينو جسم الإنسان آدمها شركيسة ونفسه نفتيسة وقلبه قلبكيسة وروحه الروح ديسة وسمعه وبصره مقل كيسية أرقيسة ويده ورجله كعنتيسية لكتيسة ولسانه عرب كيسة وكل ذلك انت صنعنا طهرت له وحاء الظاهر نقطي نفس وبنفس النفكر لقول لماني لا هو آدمهم معها إلا أنا أنجي معهني ولا أنا أنجي مئه غيره عن آدمها هين سبحانك هذا بهتان عظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بل وحن لقيست إخواني نفعنا الله به العير ورك الله سوق وقول حارب النور إلهي بالله أبو ري وحال وجب جبيي إلهي نجري أني آدمه أن إصغانا إصغنا وأنيجي آدمه وإله سوما أمرك نفعنا الله به لهذا الحكم فعلت ما كفرا هي الشرك صريحة إن جدنا الله جبانين بإله أنت لو هذا قف مسلم وأشهادنا يدفاع كرا صادرت هذا كان يرددكم وحنين أقون عربي قال لك جرنين معناها لفان سنين والله لقبين هدي اللي يري هذانا والله دغالمي هذا waxa ma rag badan tabarun ba awood ba u tabar sheegataan ba u sheegatay maahane dagaal bay ka xigi lahaayeen kitaabka in la laqbay oo quraanka ilaahay waa la laqbayay kan maxaa loo laqbayn la yahay hadii la laqbayo ummadii waa muslim oo diin bay rabaan way kala yaacay maxay ka aqsaqeen adigu hadda adoo kitaabka wata intan kaliya hadaad ogaato inaan si wadaan ma u balay balay ku qaad inta tiraado in qashinka ku dar lahayd baan u malay wuxuu ku leeyahay laa huwa illaa ana walaa ana illaa hu aadamuhu waa un aniga aniguna isaga un baanahay qodobkaas intaa ka badan yaanan ku dheeraano waa baxar baxuurkee siday u yiraahdeen iyo intan ka badan cadayn waa qodobka gabagabada ee hadan caawa gaari waaye habeen dambe loo fagaarayn doono hadii la yiraahdo taas horta waa tusaalaha koobaad horta qabsada tusaale labaad baan idin siinoo kitaabka ku yaala waxa uu ninkani leeyahay ilaahay cilmigiisa waan koobay oo hal xaraf igama qarsoono ima dheera cilmi ilaahay quraanku wuxuu idigu yiri wama utiitum min al-ilmi illa qalilan soma cilmiga wax yar baa la idin siiyay marka ilaahay wuxuu leeyahay ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء انت يسوي دونه كسي ما هنه علمي يسمى كوبان كتاب كنا وحاكو قرن إلهي حرف بان علمي يسوى قانا هل حرف علمي إلهي كمان مقرن ما ديره من ربي با شاكد الله هو إلا أنا ذي بيكولا صور نقون دونتا هذا وركيغا وحكا لبودي waxaad soo bixisaa beejka 49 la soo bax arinta isaga u gobol xaaraya beedka ugu horeeya sadarka ugu horeeya fiiri beejka 49 wa'ayantu israfila walla warida وشاهدت أنوار الجلال بنظرتي عاينت وحان عندها صوت صاري إسرافيل واللوح المحفوظ كان إشان كسو أركي صعبان إش أمريا كو والرضا وشاهدت أنوار الجلال بنظرتي وقل حار يرأو إلي يربى لبريقي مركب معلومات وحان كتاب كسيدنا وغاها الله معلومات قيبين سيدا قف كان وحقرري إني أين يسوقوا قبصانين كل لحظة يتضبط صباح مركب لحدن iyo 7 markuu marayo ee uu xoogay waan nasakhay dadka uu isiri buu faagtay beedka saddexaad imo wanuditu ya jilan naf dhira'i min fawq as-samawati nafka ku xiga wa alamu nabat al-ard kam huwa nabitun wa alamu ramla al-ard kam huwa ramlati wa alamu ilma Allah uhsi hurufahu wa alamu mawj al-bahri kam huwa mawjati
عريا بأنها مناقب كما هي واقع كتابك وأعلم أنه وحان أغهي نبات الأرض دولك وحا كصوب بحان أغهي وإيترسل كم هو أنت ويا النابت محصوب بحي أرلنا إلهي شنطة قارضاضي غير كودبة وحكستو صوب بحي وإيترسل كو وأعلم وحاكلون أغهي رمل الأرض دولك بعادك يقرور حيدي الكيال كم هو أنت ويا رملة حبت بيوترسل قرور حان هل بانو أغهي تام حد كلا يابي وعلم وحان أغهي علم الله علم إلهي ودنبان قان أحسي وحان وضا كوبي حروفه وحروف تسيو دنبان كوبي علم إلهي وعلم وحان أغهي سيدو كالي موج البحر بدا هرر كيدا كم هو انتو يساقوا موجتية انت هر الصوك على بدا واوغا انت قرور حلوك يالا وانوغا انت وقيو حصوب بحروها كسور نشانا وعي ترسانتاي علم إلهي حرف بانو هيا إذن كنتنيو وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه الله ولا بدون بعض رمين ووحن كولها كتاب كان معنيه سفهمي وان رمين قرآن وان رمين اسمه قالا كرت إنا ترى آدمها علمي وحي يربى لغسي علمي إلهي نمكو بكران إنا تلك يستغتو قرآن كيري إنا ترى ننكني وحوغا علمي إلهي وحرف وكوبي ومعنى هذا إلهي علمكم أن يرسومه وأي كفر أعظم من هذا كفر قال لماذا أنت كوين محيطا متكوين باكرتو صوصعد ولقوا بالحارية مركان إذن إراهضو ولا بكال الديمود قرآنك يا مناقبكم وحاساكو قرآن تصالى صدح هذا إذن سيو وحوليه الرقوة حاجرة غيبك إلهي وقرصونه لن استغي علمي حرف الدوق ياي غيب كروان اوغاي معناه هذا صوما هين مس ارغ عربك كل فان ميل كلام نمد wuxuu yiri rag rijaalul ghaib la yiraahdaa jira xil go'an bay soo baxaan meelo go'anna way maraan waana la tuugaayo ilaahi ghayrkii hanba loo tuugaayo loo barya ragaas warkaas ku qoran kitaabka beejka 198 la soo baxado 198 وهذا يا قد كتاب كان تقرأ سوما قيب تهرة بسم الله الرحمن الرحيم تهرة ناف بسم الله الرحمن الرحيم تدنبتك أفر تستطيع أو دنبيس صدر كوين كهرة يا بسنك وحكولي كيفية سلامه قدس الله سره على رجال الغيب سور رجاش غيب كعلم غيب كو سلام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام سو علم إلهي قار غيبه 5 لا يعلمهن إلا الله نبي يرمجن صلى الله عليه وسلم وحاس مجران بالغوليه شاكذا وشاكذا عامة يددك بنانك جوغين وحبا فهمي إن اللغو آخر يوي قرآن كنا ددك عامة وسو دقية أنك النوم السو دقين annagu dadku quraanku sheegaya manihino wax ilaahay nooga qarsoon ba ma jiro qaybkiisa waan ognahay warkaas lagu yiraahdaa xaraf baan cilmi wayso luma dhihin qaybki waa kan nimankan fiiri assalaamu alaykum ya rijal al-ghayb assalaamu alaykum ya ayyuha al-arwah al-muqaddasah ya nuqaba ya nujaba ya ruqaba ya budala يا أوتاد الأرض أوتاد 4 يا إمامان يا قطب يا فرد يا أمناء أغيثوا لي بغوثة وانظروني بنظرة وارحموني وحصلوا مرادي ومقصودي وقوموا على قضاء حوائجي عند نبينا محمد صلى الله تعالى في الدنيا والآخرة اللهم صل على الخضر أبا خضر موجودة معينا سوى ترينا إن رأينا مكاني سوى فسيري سؤال كان يكون مقدان أوتادي أبدالي النقباء النجباء سؤال كان معي قطبي غوثي صوم غشان وحكولي رجال الغيب والسلام عليكم أرواح المقدسات السلام عليكم مقعيد وتريد لأنه ويركل درجة وويه وحكوا ما أقانه
والنقبوي ودرجة والنجبوي والرقبوي بدلوي أوتادي إمامو قطبيو أمانوي محاد كرب طيب أبو دواقيسا أغيثوني إي قرقارا بغوثة قرقار وانظروني إسو إيغا بنظرة إيقد ونعكسن بوغتش داون مرين وارحموني إن حريستا ويان حريستا ماشي كذا هكي مرة يسموه جيدا وحصلوا مرادي وجيدا إذا إيسو حسري وإهرقليا يوم مقصودي وحمد الله وقوموا استاغا على قضاء حوائجي باهيدا إذا قداد عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكتيس يوجد طيب رجال الغيب كي سقال يا سقاشن يوجد مركب صار يوسف عضلك رجال الغيب كي وحكوليه هي معلمة يصاب بحانقوان لا كتاب ولا سنة لكن دقيسو قال وحير اعلم وحادواتها أن رجال الغيب والأرواح المقدسة كل هذا الله صوم مريوي رقاسي قدست أرواحهم نفط وضع الله الظهيره وحي صوبحان في اليوم السابع ما انت تضبع يا أفر يا طبن يا اللبي يا اللباتن يا سقال يا اللباتنك انت صوم الموت متوجهون إلى المشرق ننعبري بيوسي جيلان بالكستا تضبع هذا أفر يا طبن كذا لبي يا اللباتن كذا يا سقال يا اللباتن كذا أفر تام الموت ننعبري بيوسي جيلان كو واليوم السادس مالك اللحاد ككوية اللباتنات كسديدية اللباتناتنا وحي أسي جيدان وقوي بري بين المشرق والشمال إنع وقوي بري بي وير جيدان حق وير لحدان جوين كالا تيرلي يا زبارت وحيري ما أنت صدح يا شان يا طبان يا صدح يا اللباتن يا صدوناتنا وحي أجيد سدين وقوي بوجهة سدين واسير تركيا وقت سير صاعدي هو ريجا يا رجل طيب ما أنت شانات إيه صدح إيه طبنات إيه سجالات إيه تضري اللباتناتنا قلبات بوجهة ما أنت اللبات إيه طبنات تضري طبن شن يا اللباتنا وحي وجهة كونفور قلبات بوجهة ومتوجهون بين المغرب والقبلة إنه كانت قبلة المرجع حقها تاي قلباتنا حقها تاي وقوي قلبات بنقصومه كونفور قلبات ما أنت سديدات يكوي طبنات سديدية طبنات لحية اللباتنات أفر اللباتناتنا وحي وجهدان بين المشرق والقبلة وقوي بريبي وجهدان فيا أخي ولالك يوم إذا علمت هداد أغاته جهات سيرهم جهاد يهضبوا السعودان وطريقتهم جدك مريان ينبغي وحاكوها بون أن تلتجئ إلى الله وإليهم إلهي إياك إناد مغان قشو واركسو سعودان ما رأيكتا هذا كسو مغان قليسو ما بعد قراءة أورادي مركز آخر ذا كذب تقول هذه حصلوا مرادي ومقصدي ويسمي لهم الطالب قف كاغان وحتوغا يا ويديسنا يا واحد مغعابي مقصوده ومراده وجدده الله باهيدا دنتادا شيغان صلاه الاستخاره ديبا الله دك معاله قلدي dadka barakadooda ilaahay wax kugu siinaya rijaalul ghaib maalin badina u socda oo jidkoodii dhinaca u jeedaan marka ogaatay iyaga ilaahay bari leeyahay وشرك صريحة وي كفر صريحة وي نصوصتي غيب كإلهي كليا قوال لبيني إلهي كليا هلا بريا صوما طايد وين أضم بيسا بريا دي إلهي غير كلا بريا يو مربان كهر دي دونا يدنا وحا كوا بري اللي قولي هي تصالح أفراد إن قيبتك كقب حيا وهي وحو كله السيدة ضبع أولياء هذه إلهي دين بحيسا وهذا مدحوينها أذون وزيري سكرتارية سيمر إن مياوتي كرتا مايا إلهينا أذون أولياء مرين مبري كرتين ومن الدوان كرتين سيدا دورنا مدبان دين شيء دينة إسلامكم دينها كهنوتك أو حيك قد وانتهي ودين أدونك ربك يتوس وبري كرا كوا كلا ننسى وإن أتبادرك يا شيخ الدين توضا إنتاد مرته ودنبقاك أشيغته
oo xoogay ka daadsado xoogay kuma masaxo ku dambi dhaafo bal kiristaanka tag dambigiisa waa inuu baadariga kaniisada u sheego haddii inta dambiyo oo galay ganaaxa waa inuu ka qaadaa markaana ilaahay baan ku gudda dambi dhaaf uu soo siiyaa hunduusta haddaa tagta waa sida diinta kitaabkan ay tilmaamayaan waa diin noocaas ah wuxuu ku leeyahay ilaahay adiga kaliya ma bari kartid yaa rabbi waa inaad awliyada bartaa war xagee lagu arkay nin weyn oo wasiiro la marin oo loo galo oo awliyadu maxay ilaahay u yihiin booskii wasiirada madaxweynaha u joogaan way warka shirkiga kufriga kitaabkan ku qoran yahay beejka 46 la soo baxa haddaad moodaysaan beentay أفرتني اللح وحولي هل كان أفرتني اللح إلى أفرتني يتضوى قيب تدموي بسم الله الرحمن الرحيم سوما هستان halkan madhabkii hal awliyada sida loo bariyo lahaaba lagu barayaa wuxuu ku idaa waqa'a laka muhimun haday arin muhiima kugu dhacdo waarata an yadfa'ahu Allahu anka ilaahayna inuu kaar qaada adoonayso fasalli rak'atayn ba'da salati al-'isha'i aw fi waqti as-sahr laba ragcadoodka cishaha kadib ama suxuurti وتقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة فاتحة كده ركعات كسته وحد آخر الإخلاص 11 مرة كوية تبنقل هو الله آخر ما أنزل الله به من سلطان وي دين تبع لك كمان كقول لك كمان هيو فاتحة كده كوية تبنقل هو الله آخر وصلاة أحد لكن أنت هذا القرآن كون الدين لابد أي نوع إسك بدعام بين قول الله هيدا وحكى على صوبه ثم تسلم وتسجد لله بعد السلام تعالى بعد السلام صلاة كبح كدب سجود وتسأل حاجتك ويديسو ثم ترفع رأسك وتكر قاري وتصلي على النبي 11 مرة كوية توانشار بعد النبي كصلي ثم تقوم كدب الاستاغي وتخطو وحات اللابسا 11 خطوة كوية توان تلابو إلى جهة العراق لنا عراق تلابس كوية توان تلابو عراق محل الله تلابس هذا الشيخ جيلاني بكو آسوي الساقا در القائنات باردو هذه يا ربي أنا الساقا يدين بحية كوية توان تلابس كو إلى يمين القبلة قبلة ويلبا يرميدك تيدا أو تلابس وتقول في الأولى تلابس كوات مركا قادة وحدها يا شيخ محي الدين شيخ محي الدين وفي الثانية تلاوة الله بعد مركز قادنا وحد هذا يا سيد محي الدين سيد محي الدين تلاوة الله وفي الثالثة تلاوة سدحادنا يا مولانا محي الدين ده وفي الرابعة تافرادنا يا مخدوم محي الدين كله خدمين يوم وفي الخامسة تلاوة الشراد يا درويش محي الدين درويش محي الدين هذا قال لها عرفت حلقة جوته درويش وحوية قناة تقانا هذا ربعا ضد كان وضدا وحبك لوغين ومغفلين هنا يكون وحب مامور الكريم هؤلاء دراويش بيقولين صاص هذا عرفت شفته هنا وفي السادسة اللحاد يا خواجة محي الدين خواجة ninka faranjiga cadaanka loo yaqaan ee muslimka ahayn waxaan fiiraa ina darada hatta sheekha ina darada lagu la dhaqmaya fiir darwiish iyo khawaaji وفي التاسعة التسعالات هي قرب الله سوك عي حدث يا غوث قرقار محي الدين وفي العاشرة حاجة شوي السابعة شو غميا وفي السابعة يا سلطان محي الدين كتابكم مركز الإصلاح يساس يكون في عندنا مقطع دان سطرية وهذه خوان إيسان وفي الثامنة تسدن يا شاه محي الدين شاه على الملك وي وافك فرسكي ذاك بيرشيانكي إيرانتي الله يهله
وفي التاسعة تسقالات يا غوث محي الدين قرقاره وفي العاشرة طلابة الطبنات مركز قادنا يا قطب محي الدين وفي الحادي عشر تيقول دم بشيء سماه طلابة كوي طبنات يا سيد السادات عبد القادر محي الدين ثم تقول وحد يا عبيد الله أدونك إله جروبيو أغثني قرقار بإذن الله ويا شيخ الثقلين جن يا إنس وكي شيخ وهايو أغثني قرقار وامددني زيادة وحسي في قضاء حوائجي باهذا إلى قديتان كذا ثم تقرأ هذا أخري هذا الدعاء صوص عطا بثلاثة مرات سدح شهر أخري اللهم لك الكل أرى وحوال بإسكاله وبك الكل أظن ما وحوال بقوة هذا ومنك الكل وحوال ببعض كاي ماذا وإليك الكل وحوال ببعض كوسو النقضة وأنت الكل أنا وحوال بقى وحوال بوعدك لا أنا إلا هو ذي حق هذه يسوي شيطان وكل كل سكن هذه أبوي برحمتك يا أرحم الراحمين تاني واقع تضباطا يلا وانا صابح تضباطا يلا صفحة 72 فائدة باللغة هذا فيري في الاستغاثة بواسطة حضرة الخوث قدس سره فإذا كسابسا إلهي قرقار مركا لويدي سنيو إياذا الله مري حضرة الغوث شاء عبد القادر الجيلاني قطب الأقطابي فاتسيمري وهي مجربة ودعاء التشابيي لإجابة الدعاء الله برقا الدعاء هذا إن لا أقبل حداد سمي سهران لو تشابيي بكوين هوا شاكين كو بشرط الصدق إن الداعات كاتو هذا قلبك كير إنكر سنين بالغار روا روح دعوة روحنا مو قلبي هيدو بالغار صاري وانقرتك والتوجه القلب قلبك أقونا إنه يد الصيت هي أتشهيستو وقابله والفوائد في العقائد هي فائدين عقيدة لك وهي إذا كان لك مهم أيها الطالب الثاني وحاول يهضاضن ليضاهي نيو وحدوني الصادق الراغب وحنا الربرنا يكتهايو وكان ذلك المهم دنيويا أو أخرويا وحننا وأمد الدنيا هي أما آخرية دناين يسو فانهض وحات صوك على في ليلة الثلاثاء هبينك الثلاثة قبل الفجر صلاة الصبح كهر صوك وأسبغ الوضوء ويسد صفي عنه ما يستر وصل لله تعالى ركعتين أتكو بنية صلاة الحاجة صلاة باهظة هذه إن لقوا قدادو نجوني وتقرأ في الأولى بعد الفاتحة ركعت ظهر فاتحة كدب وحاد أخردا 11 الكافرون 11 مرة كو يتبنشر قل يا الكافرون أخرج كو وفي الثانية الإخلاص 11 مرة كو يتبنقل هو الله كو آخر فاتحة كدب طلباتنا وبعد السلام بكى صلاة كب حدنا تقرأ الإخلاص 11 مرة كو يتبنقل هو الله آخر وتذكر وحد حستا حضرة الغوث قدس سره حضرة دي سيئة بحد مجي عيسى حستا حستا 11 مرة كو يتبنشر بهذه الصفة سيدة صوص عطنا واخري يا سيدي عبد القادر محي الدين كو يتبنشر كو علي وتخطو حروط اللابسة إلى جهة الشرق دين عبرنا 11 خطوة تتكو يتبن طلابوقات وتقول حتى هذا في كل خطوة طلابك استوى يا شيخ عبد القادر يا جيلاني ثم تكرر وحتكو علي البيتين لبدا البيت 3 مرات سدح جير لبدا البيت سسعتكو علي وهما وحوي أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري وعار على حامي الحمى راعي الحمى وهو في الحمى إذا ضاع في البيداء عقال بعيري شيخي بالله عنانا يا ما أنت ماشان حتى يغتك توال عيبودي حجري أيدركني ماليلا يو إيقار يضيم ظلم معد باي الظلمية كرتا والحال أنت أديك الشيخ جيلاني يو ذخيرتي كيت كيغا آطاي عن لابتكوي
وأظلم في الدنيا مأدوم بالله يقول منكرا وعلى الحال أنت أدق النصيري كي قرقار يأتي هدي لا يقول ظلميو أدونك وذوح قبا وإذا الصوماء عيبك وفلا وعار وحا عيبك على راعي الحمى قلك الله حرايا حولها لقى عليه نك الراعي واردية وهو في الحمى السبب ماشي حرنا تحت شوقه إذا ضاع في البيداء بنانك هدو كل ما عقار بعير نفقين حرقي ننكي وحل إلى هي حلت شوقي بيرتا ما حولها لا شوقي هذه حولي حرق كله مصوعبكم وهن حولي ضيعي ما أنا كان هدا ظلمي قوه إذا وادي ضيعتني وعبودي ثم تقول وحد يا سيدي عبد القادر يا جيلاني أدركني سوقر وتداركني سوقر وتسأل حاجتك من الله ويدسن بواسطة الغوث المشار إليه أضو سيمرا يقرقارها الله تلمامي وحاس نفعنا الله به دهدي إلهي واحد من هو وافعينه intaas qaybta labaad baan kaga gudbi oo iska yareyd qaybta saddexaad baan u gudbi kitaabka oo intan ka sii daran aadaankeeda joomiya warni waqtigu degdeg badan طيب qaybta dambe waxa weeye qayb kitaabkani uu leeyahay Sheekh Abdul Qadir waa kabariye ninka uu u tiirinayaay uu ku sheeganayo inuu ilaah yahay buu sheeganayaa iyadana 8 tusaalaan ka soo qaadan 8 tusaale qaar kamid ah kan ugu cadcad baan ugu dambaysin in meel laba loo gabaninba 8 tusaalaha koobaad wuxuu leeyahay aadamahan waxay culum diiniya adduun yaqaanaan hatta al-anbiya ana baray waxalaalay waxay aadamuhu cibaado sameynayaan ee farad iyo waajiba ama sunna ahna aniga ii cibaadeysanayaan waajibkana ana ku leh sunnadana ana u jireeyay ana ii caabudayaan cilmigana ana baray cilmiga yaa idin baray yaa saawudan marumba inaad waajibka iyo sunnadaba ninkan la sheegayo aad u gudataan dhageysta hadaba 48 la soo bax beeshka 48aad labada sadar ee ugu dambeeya kan hore gadaal ka soo tiriyo sadarka labaad akhri beedka fala ilma illa min biharin waradtuha wala naqla illa min sahih riwayati fala ilma unka ilmi la barta kama jiro illa min biharin bada waradtuha aan hore igu arooray maahane wala naqla ilmi la soo guuriyana ma jira adduunkan إلا من صحيح الروايات كان أصحيح اللي يقولون يوم ما هني وح علمي وأنك اللي سوقر يوم ما بتشرب وح علمي لقيبي والله سوما وركسي كلام إذين يريه الله بعنا أيوه علمي أنا مبارين أروق متشرب وركا وحكسي عض والله وضع ويسكت ترى اللي حد اللي يسديد مركا تكتب كاتبيتك اللي حد اللي يسديدات تكتب بيت كلابات كو لبا صادق horta wuxuu ka soo sheekeeyay waxa la yiraahdo awliyadu way tashakkulaan buu beedka hore kaga hadlay wuxuu leeyahay waan tacadduda meel kasta waan joogaa dhulka taaka ugu jira sabada maqdis dhulka taaka ugu jira wala jaami'un illa fihi illa wali fihi minbarun wala minbarun illa wali fihi khutbati masjid kasta oo jaami'a ba minbar baan ku leeyahay منبر كستنا خطبة واتاقنا وكاخريا وابن الصبر كتيرديس ولجلس انت جوامع لي منابر تاركيسين سقوا تاقنا وكخطبين يا ماركتين مسألة ووحدة الوجود وي لا هو إلا أنا دي وي بحر بحور كذب بيوان لكن بيتك كذب بيوان هذا السعودان ولا عالم إلا بعلم عالمون ولا سالك إلا بفرض وسنتي ولا عالم قف علمي يقان مجره إلا هدوشر بعلمي أني علمي يقول عالم قويا ولا سالك من عبادة يستنى مجره إلا بفرض واجب كيجي وسنتي سنوين كيجا معنا
midka la caabuday farad iyo sunnaba lagu caabudo soo Allah ma midka wax kasto dunidan dadku ay yaqaanaan allama al-insana ma lam ya'lam quraanku soo rabbi ma de waxa rabbinima Allah sheeganayaaye warku sidaas uu dhigan yahay cilmiga adduunka oo dhanna ana wada bixiyay cibaadada adduunka oo dhanna ana la i wada caabudaya labadaas sifaadkii rabbi ma subhanahu wa ta'ala adu inta sida akhrida hadaba nafa'ana Allahu bihi taasi waa tusaalaha koobaad salayawan in lagu dheeraado uma baahna sheegitaan iyo waxaan ku qoran meesha cadeynta u baahay waa kay culimadu yiraahdaan dhikruhu yughni an raddihi in la sheega kaga filan in la radiyo diriil loo keeno ma baahna ninku la anaadi caabudaan farad iyo sunnaba waragta kuma caawudan baa ku filan soo qodobka labaad wuxuu leeyahay in Allah lay aadamaha inta baahan in Allah lay intii doonta ifka adduunka meel kasto ay ka joogaan iyo aakhiraba ana u gargaari ilaahi wuxuu yiri amman yujibu al-mudtarra idha da'aahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard wa ayu amman yujibu al-mudtarra qofka dhibaataysan yaa ducada ka aqbala markii uu baryo ويكشف السوء حمانتا يا كقارة عد كلا هدا تراد إله وياتري إله مع الله ملاك كلا إله اللي تراد دين ننك وحكوليه هي صفحة لبن ميلاد صدح ميلاد بكل شيء جايو باللغة أفتن يسدد دي هدا يكون نقو هل بيت بوكو إشاري كذال بوكفا فاهي بيت كاسي وحاوية قيبتا ضمبه كو لابا صدح أفر شن وسري سر الله صار بخلقه فلذ بجنابي إن أردت مودتي وسري أنا سرت إذا سر الله سرت الله ويه وصار بخلقه خلقه سكو الصعوط ساميسا فلذ وحد مغنقشا بجنابي أنا إن عيقا مغنقل إن أردت هذا دونيس مودتي تعيلك هذا دونيس وانا جعلكيس maxaan ku sameeyay waxa ku bari jacayl ilaahay iyo rasuulkiisa Allah doonaaye ani wadaad jacaylkii maxaan ku fal inta aana kugu daata way beedka kontonaad imo beedka afraadna soo gaad wala safxada kontonaad beedka afraad imo tawassal bina fi kulli hawlin wa shiddatin ughithuka fil ashya'i turran bihimmati أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأحرسه من كل شر وفتنة مريدي إذا ما كان شرقا ومغربا أغيث إذا ما صار في أي بلدة فيا منشدا للنظم قل هو لا تخاف فإنك محروس بعين العناية فكن قادري الوقت لله مخلصا تعيش سعيدا صادقا للمحبة موجدا توصل بنا أنك إلهي النوم في كل هول وشدة لبعتك استوك قبصته أغيثك في الأشياء الرمها وكو قرقانا يا طرا لمانتون بهمتي أنك دوريتان كيغية ربيتان كيغان كو قرقانا محايا لي أنا أنيقو لمريدينك مريد كيغا إيقو حرا حافظ وانك إبدبادين أيام ما يخافوه كعبصده وأحرسه وكإلالينيا من كل شر وفترة شر لبعتك استواك إلالينيا مريد كيجيو إذا مريد كيجوله إذا ما كان هدوچ وشرقا بريء ومغربا كالبيت أغثوا أو قرقاريا إذا ما صار هدو أخذ في أي بلدة مقالك استوى روحا أما لك الصور رعايا ونراقب صدا فيا منشدا للنظم قبل قاعدين كثيرين يقوله به ولا تخف عبسد فإنك أدر محروس والله إلى لنيا بعين العرايات الدريال والله إلى لنيا فكون هذا توليك قادري الوقت وقت يصير إن قادري النطق أو مخلصا داعتك تعيش سعيدا ليبان بتكون ورانيسا صادقا للمحبة تعال كده وكنبيه ونقول للرجال وقتها بركي إيمانك يا ضميرك يا عقيدته أي واحد يرديده بقولها عبصنا والوالدين يا شعب قال بدأ سكتروي وأنيل ليه دربي جا كورستور أنا كهيه
isku turwaya naarta ana ka hay inta adduunkii baa laga hadlay soo maaha 68 soo bix marka aakhiradii oo lagu daraadarkii بيت كأفراد هذا إمام صفحة اللحظة السديدات بيت كأفراد بالآخرين يصدق هذا كذا بيسة مريد لك البشرى تكون على الوفاء إذا كنت في هم أغيثك بهمتي مريدي تمسك بي وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة مريد كيو لك البشرى بشارة الله تكون أن وحدها على الوفاء وحن كاد البين باد فلن إذا كنت في هم مرجه دات كترتنا أغيثك بهمتي بانكو قرقاريا مريد كيو تمسك بي أني إقبصو وكن بي أني واثقا من كالصون نقو ليحميك في الدنيا سيان كوبت باديو إيا ويوم القيامة ما انت قيامة أنا هم حيانا اللي مريد كيغا حافظ ما يخافوه كبقونا مانك إلاليا ووجيه وكبت باديا من شر الأمور وبلوة أرمها شركية بلايا كبت باديا وكن هو يا مريد كيغيو حافظا لعهودنا بلانتا يضا إلاليا أكون وحان أهانيا حاضر الميزان قيامة ميزان كمتاغن يوم الوقيعة مالك قيامة اللي يقول ميزان بيو ميزان قارنا عسلان قارنا فوضان يو أنا ميشا تاغن حابصني موي ولهذه قصة ثاني قصة إليها تفريح الخاطر في مراقب الشيخ عبد القادر صفحة أنا مالين صدني الله بلا صدني شن مالها كوهدن صدني أفرتني انتو بحيث اختي وراي قدام بيسي كتابك ويقول له انتو صدني دي فوحو كل هي نين مجوسي او دب عابده ولله اقون والنبي اقون عليه الصلاه والسلام والقران اقون با شيخ التعلان تيريو سند غورده حفله دودسي وشدغي جيريو uga qayb gali jiray xoolo bixin jiray ninkii gaalka ahaa ee majuusiga ahaa baa dhintay qabriga markuu galaa munkar iyo nakiir u yimaadeen koow wala soo fariisiyo mar rabbuka rabbiga waay kaasina ma aqaanani ومن نبيك نبيك أبونا وعي ما أقان وما دينك دين تاذو محيطي ما أقان ومحاط قانا أنا شيء عبد القادر أنا قانا وحيلين كتير كتاب قرآن ما نشيء يقول فلردي ملك ربي الله اللي أنا ربي يو نما أديك أقوني والدين تاذا أقوني والنبي أجا أقوني لكن الشيء عبد القادر اللي رادان أقانا له طاميشن تاجن مركز إلهي وحي أمر ببحيح يقول قبطه النار تقليه labadii malag markay soo jeedsadeenba labadii malag iyo ninkii dhaxdooda Sheekh Abdul Qaadir bud ka soo yiri qoradu maxaa ahayd aniga Sheekh Abdul Qaadir weey oo maxaa rabtay ninka lama cadaabayo maxaa dhacay isagoo aanu yaqaana anna ilaahay rasuulkii diinta waa aqaana labadii malag han noqdaan ilaahayow عبد القادر اللي راها مشى بود كسو يريو نيكي نو ديدن ورورك عبد القادر كبخه نينك النار تقليه نينكي هاسكو سو ما جيرانه شي عبد القادر مايا ما لا قليناي ور انه وطن او كره هدا قبطه يراهدين با بترتيب هدا قبطه يراهدين با شي عبد القادر يري باي دهان hadii ninka aadeen weydaan naarta dhan baan damin oo albaabada u xiri سبحانك وينو إيمان دونتا هالكن اللي كنت على نار بالباب الله حري حالنا وانسو آخرنا كتابك كسو آخرنا وكن قدانا إلهي ونكي عبد قادرها النار تنقلين لهم بالباب هذا نسوق الله بيه وعظمين بوليه محان سمعنا إلهي هير هذا وسكتاب القرآن سبحانك هذا بهتان عظيم يوصل النار إنه قد مننا إنه قد داعي لا إله إلا أنت إلهي باي ملائكتي سيبا رب النار إنه قليو عبد القادر بانا كهر استغايا عرق عهدك النار تاني كدم يجري مركاسي كل عوايين وتيسي النقطي وآياته إن الله لا يغفر أن يشرك به وأن لقتك
nafacana allahu bihi haddaad tiraad ilahay muxuu kugu anfacaa shirkiga iyo kufriga baasha sooma noqonin ilaah iyo cabdiqaadir hadday isqabtaan cabdiqaadir baa ka awood badan sooma noqon isla kitaabka waxaa ku qoran qiso tan oo kaleeta ah waxaa kaloo ku qoran kitaabkaas islaam baa u timid waxay tiri sheekhow muddaan reer lahaa waxna waan dhali waayey ilmaan kaa rabaa iisug buu yiri bay yidhaahdeen kadiban wazuuran sheekhu waa ka bari laaxul maxfuudkaan kuu fiirin in ilaahay ilmo kuugu qorayo in kale sug saasuu u jalleecayo wuxuu yidhi gabaray waxba kuuma qoran ma dhalays baa kuu qoran waxay tiri ani sheekhow ilmo inaad isiisa maahane halkaa ka dhaqaaqi maayo markaasuu wuxuu yidhi naa ilaahay kuuma qorin waxay tiri ama ha qoro ama ha daayo ani halkaa ka kici maayo ilmaan rabaa sheekh cabdiqaadir wuxuu ilaahayow gabadhan wiil naga sii tartiib 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 wuxuu yidhi ilaahay buu la hadlayaa bay leeyihiin ilaahay baa yidhi sheekh cabdiqaadir waxba umaanan qorin ilaahay uu iska daayo laba uga dhig war sheekh cabdiqaadir xaggaa wax u wadaa ilaahayow 3 uga dhig warhee 4 uga dhig waxba uma qora 5 uga dhig markuu 7 marayo baa ilaahay yidhi bas waan siinaynaa jooji 8 uga dhig 8 bay dhashay dhahay subxaanak soo hore idinma dhihin waxani waa laba kala diimood diin laga rumaysan yahay inuu cabdiqaadir ilaahay ka awood badan yaho wuxuu rabaa qasab iyo xoog ku marin subxaanak ninkan wuxuu leeyahay aniga saa ku badbaadine aniga imagangal waxaa kaloo tusaalaha saddexaad wuxuu leeyahay ambiyadii iyo umamkoodii waa qaybtan ka mid a umam iyo ambiyo soo isma qabanin nabi kasta anaa u gargaaray gaaladiina jebiyey nabigana badbaadiyey nabi muuse qaraqii fircoon lagu halaagay anaa ka badbaadiyey nabi nuux duufaankii lagu halaagay anaa ka badbaadiyey thabuud sayxadii lagu halaagay anaa ka saalix ka badbaadiyey qawmu huud reecad waxa sayxadii reecad lagu halaagay anaa ka badbaadiyey huud rajfadii lagu halaagay reer thabuud anaa saalix ka badbaadiyey nabi ayuub markuu jiraday anaa jiradii ka caafiyey nabi ismaaciil markii hal la gowraca la yidhi anaa idan la iga qaatay in neef xoolaa lagu furto intaba hanaa sameeyey intaa aduu yaa sameeyuu qur-aanku yidhi allah ninkani anaa sameeyey buu kule wixii sameeyey ee uu sameeyey lagu yidhi waa aniga haddaad halkaa warkayga ninkii dood ka qabow halkaa safxada aad joogtay joog 8 halkaad ku istaagtay ana kuntu fil ulya binuri muhammadi wa fi qaabi qawsayn ijtima'u lahibati inta ka dabaysa akhri ana kuntu ma'a nuuhin ushahidu fil wara biharan wa tufanan ala kaffi qudrati wa kuntu ma'a ibrahima mulqan binarihi وما برد النيران إلا بدعوتي أنا كنت مع راعي الذبيح فداه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما بريت عيناه إلا بطفلتي أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا وقعدته الفردوس أحسن جنتي أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاي استمدتي أنا كنت مع أيوب في زمن البلا وما بريت بلواه إلا بدعوتي أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داود حلاوة نغمتي أنا للسعودي مع النوح النبي النوح للسعودي بردارك زفير أشاهد وحن داوني في الوراء خلقك dadkaasoo bixaaran wa tuufaanan bada iyo duufaan ay ku habsadeen badda iyo duufaankaasoo qaarkoodna nuux bay u celiyeen calaa qafi qudrati calaa casha awoodayda aan ku hayay
awoodda cashayda awooddeeda baan ku hayay qaar waxay u celiyeen nuux baan ku hayay qaarna waxay yeen duufaankan iyo waxaan dhanba calaa cashaydan saa ugu hayay khalqa dhoon saa ugu gadiyey waafnaytu lanaama bilaxdati baa soo socota laba wakuntu maca ibraahiimana waan la socday mulqan binaarihi naarta marka lagu tuuray faalquuhu fi ljaxiim faaraaduu bihi kaydan fajacalnaahum lasfaliin wamaa burida niiraanu badaan dabkiina lama qaboojinin ilaa bidacwatii aniga alla barigaygay bay ku qabowday dabkii ibraahim ku guban lahaa aniga alla barigaygay ku qabowday kow waana kuntu waxaan la socday maca raaci dabiixi fidaahu kii ilaalinayay dabiixiisu ismaaciil ahaa furashadiisaan la joogay markii ibraahim la yidhi falamaa aslama watallahu liljabiini wanaadaynaahu an yaa ibraahiimu qad sadaqta aru'ya inaa kadalika nazil ila akhirka wuxuu yihi wafadaynaahu bidibxin cadiimin baan ku furannay wuxuu yihi wamaa nazala alkabshaani labadii wan ma soo degin ilaa bifatwatii ilaa aniga fatwo iyo layga qaatay anu aan fatwooday waxaan u jeedaa khatarteeda ana kuntu maca yacquub aan la socday waagii yuusuf walaalihii ay masaafuriyeen ay gateen fii khashwi caynihi ishu markay daboolantaye wabyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadiimun ilahay uu yidhi indhihii buu beelisuu ooyayey waan la joogay wamaa bariyad caynaahu labadiisii indhoodna ma bogsanin ilaa bitaflati markaanu ku tufay maani wati abshir bacallaaha wamaa bariyad caynaahu ila soo baxeen muxuu yidhi ya taa way soo socota waan ka hadli doona indhihii nabi yacquub ee bogsadayna anaa ku tufay labadii wanee ismaaciil lagu furtayna anaa fatwooday dabkii ibraahim ka qaboobayna anigaa ducadeedii ahayd kafkiiyo qudradu ku badbaadee nuuxna anikaygu ahaa ana kuntu maca idriisa haddaba nabi idriisna waan la socday lamartaqa alculaa kor markuu fulay warafacnaahu makaanan caliya suuratu maryam lagu yidhi waaqacadtuhu anigaa fariisiiyey alfirdowsa baan dhex fariisiiyey oo axsana jannatii jannooyinkayga ugu fiican jannooyinkayga iskale way soo socotaa inuu jannadiis anaa la dhihi doono laakiin axsana jannatii oo firdowsa yaa idriis geeyey anaa geeyey kow ana kuntu maca muusa nabi muusaan la socday munaajaata rabbihi wanaadaynaahu min jaanibi tuuri laymani waqarabnaahu najiyan markii lalahaa muuse waan la socday kow wa muusa nabi muuse casaahu ushiisii mucjizada ahaydna min casaaya aniga ushayday istamadatii ka ijaasa qaadatay ushiisa nabi muusena ushaydaa sheekh u ahayd anwaarta iyo karaamada ushayday ka qaadatay baasha ujeeda halkeena la marayso nuux baa laga soo bilaabay soo socod ana kuntu maca ayuuba baan la socday fii zamani lbilaa xilliga imtixaankii 18 sano oo xanuunsanaa wamaa bari'at balwaahu imtixaankiisiina kama bogsan ilaa bidacwati ani alli barayay ku bogsaday kow ana kuntu maca ciisa baan la joogay haddana wa fi lmahdi naatiqan isagoo dharabta ku hadlay wa acطaytu daawuuda nabi daawuudna waxaan siiyey xalaawata naqmatin cod macaanana siiyey bismaara min mazaamiri ali daawuud nabi ku ammaanay cod qurayxi anaa siiyey codka macaan warkan idinku waxaana rumaysantihiin subxaanak intan ilaahay uu nicamka siiyey ambiyadii uu badbaadiyey qur-aanka intaasoo meelood qisaskooda qur-aanka wada akhriya wixii oo dhan sheekhaa badbaadiyey sheekhaa sidan sameeyey sheekhaa waxba sameeyey intaa ilaahay baa sameeya waxaa lagu rabaa in lagu yidhaahdo ilaah weeye warku sida looga jeedo baxar buxuurkan ku caddayn doonaa ee tusaalaha afraad aanu gudbo adduunyada yaa iska leh walilaahi mulku samaawaati waalardi ilaahay baa cirkiya dhulka waxaa iska leh soo maa yakhluqu maa yashaau wuxuu doonana wuu abuuraa hadduu ilaahay inuu adduunka bedelo baabi'iyo rabo intay ku qaadan wamaa amrunaa ilaa waaxidatun kalamxin bilbasar ilbaraqsi weeye halkan wuxuu ku leeyahay adduunka anaa iska leh haddaan rabana ilbiriqsi baan ku baabi'in haddaad tirahda warkaa xaggee ku qoran yahay 49 52 iyo 67 afartan iyo sagaal kasoo bilow
سفي عن إلى آخر مركب بيت كسدحات وعينت إسرافيل والله حرض ضعاف وشاهدت ما فوق السماوات كلها نضاف مع كل حاجة وكل بلاد الله ملكي حقيقة وأقطابها من تحت حكمي وطاعتي مركب وكل بلاد الله أرلضى إله يوضاني ملكي أنيق ملكي جيجوي مجاز معه حقيقة رب يطه وأقطابها أقطاب أولياء كنولنا من تحت حكمي وطاعتي حكم كيجي أتعاد يدي ما ملكي هوسي مادان كو هرا لجاجسي وذي كنتني يلا بتك بيت كأفراد نتك بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبلي قد صفالي بلاد الله إلهي بلاد ليس ملكي وي تحت حكمي حكم كيجي هوستي مادا maxaa ka dhashay intaas markay xukunkaaga hoos timaado waxaa ka dhashay inuu 67 ku yiraahdo soo bixi 67 kow laba saddex afar shan gadaal ka soo tiri beedka shanaad iba malaktu bilad allah sharqan wa maghriba wa in shi'tu afnaytu al-anama bi lahdati malaktu bilad allah ban milkiyay شرقا بري إيا ومغربا قلبيتبا وإن شئت هدي أن دوننا أفنيت الأنام أنك وان بابين بلحظتي البرقصة يقاكو بابين سيلاهم بدهن الله كلام في البصر وركبوا الشيقنا يا أغو والله وصوى تلتلابسنا يا باشا بندانك على صو صاري دونا هذا دمر رميسان تاي سوميدان مقال عركان تيرك كسيبيو كان عن إذن كوس سمايني أدوك أنا إسكال هذي بدوا سعطا نبين باك جسوا حاجتي تصالح الشنات عن كوس كوب وحكولية هاي كنا يا إسكال وحيدها شيخ عبد القادر نارتنا هدور وقف له وين بصار ومحو ساري لا هي حوي النبي حد بكير حرمين يا لكن هو ذا warkayga haddaad muran ka qabto 1 ka soo bilow dhowr meelood baan ka tusi tii horta daba socdaatano tan bay tii hore ka dhigaad ka mid tahay saa'irul ardi tahkulluha tahta hukmi wa hiya fi qabdati ka farq al hamam laakin beedka ka horeeyay muxuu ku leeyahay fiiri وإذا ما جذبت قوس مرامي كان نار الجحيم منها سهامي حتى قانصد إذا ساوي تشيدو وف كسيه فلا ضيدا نار الجحيم اللي هي وفلاريها انقبي يقول هرت سيدا فلارا أنا انقبي يبوكتي كيرتي وي مركز وحو كسي عدايستي لحدن يلح بيتك وهو الرأي فيري وملكني جمع الجنان وما حوات وكل ملوك العالمين رعيتي وملكني إلهي وحيسي جمع الجنان جنوين كورن بويسي إيا وما حوات وحكو بدا جرب marka yaaro jannadii la weydiisan sheekha weydiisa waa ilaahay soo ku wareejiyay xilkeeda isagoo bilkeedis ka wareejiyay waqa'atuhu al-firdaws ahsana jannati idii ku noqo marka jannadaydi firdawsadii jannooyinka walaysay baan geeyay kan وملكني جمع الجنان وما حوت جنويك الشيخ اسكال سو لغوما دهين وا لخدن iyo لخدن iyo 8 ibo وبيت كذا ان شيغي بان uga jeeday waqa'atuhu al-firdaws wa lixdan iyo 9 ahsana jannati amma qadiyada an-naarta inuu xiri karo waa 68 beedka saddexaad ibo naarta waan xiri karaa لكن هل مدبان كحيرينيا ومحي تاي نبي محمد iyo quraanka lagu soo dajiyay sawmadhihin gaaladii ilaahay rumoowayda naar baa la geey hadnaarta hadan ka xir hadalkiiba ku beeloobi nabiga sawma nabigaan inuu ballanta uu qaaday ku beelowda ka baqaya ma ahane naarta albaabadan xoog muruq baan ku xiraan leeyahay waliba walawla rasuulullah bil ahdi sabiqa لا أغلقت بنيان الجحيم بعظمتي
walawla rasuulullaahi haduusan rasuulka ilaahay ahayn saabiqan mid igala horeeyay bilcahdi inuu u ballan qaaday gaalo in la geliyo la aqlaqtu waan xiri lahaa bunyaana aljaxiimi dhismaha naartaba waan xiri lahaa bicadamatii weynankayga muruqaygaan ku xiri lahaa bilaahi calaykum qof muslima ma waxaa rumayn kara markaasaad nafacana allahu bihi dhahaysaan saw idinma dhihin waxani waa diin kale diinta islaamka maaha islaamkuna waxaan beri buu ka yahay saw idinma dhihin tusaalaha xiga waxaa taqiinay ilaahay hadduu wax doona muxuu yidhaahdaa inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun wuxuu leeyahay aniguna warkaygu amarkaygu waa amarka ilaahay waxaan doonana kun ah ubaan dhihi fayakuun warkaasaa ku qoran kitaabka haddaad tiraahdo xaggee kaga qoran yahay wuxuu kaga qoran yahay wadaadii hore kitaabkayga yaa isiiya bay dhihi jireen 48 tag kor ka soo tiri nadartu bicayni alfikri dhaaf saqaanii bika'sin min mudaamati xubbihi dhaaf yunaadimuni fi kulli yawmin wa laylatin ilaahay baan wax wada cabnaada dhaaf dariixii baytullaahida dhaaf wa sirrii sirullaahida dhaaf maxaa ku xiga wa amrii amrullaahi in qultu kun yakuun wa kullun biamri illaahi faxkum biqudratii wa amrii amarkaygu amrullaahi amar alla wey in qultu haddaan idhaahda kun haw yakun wuu ahaanayaa wa kullun wax kasta oo biamrillaahi amar alla ku kala socdayna faxkum waxaad ku xukuntaa biqudratii ani awoodayda laa ilaaha illaa anta laa ilaaha ila allah soo idinma dhihin waxani waa diin kale islaam maaha islaamkuna beri buu ka yahay soo mar hore idinma dhihin waa idinku badiyey laba tusaalaan kusoo gabagabayn mid wuxuu leeyahay carshiga iyo kursiga iyo uunka hoose iyo uunka koraba gacantaan ku hayaa saa darteed waan wada gedin karaa carshiga anigaa haya kursiga anigaa haya dhulka anaa haya cirkana anaa haya wuxuu leeyahay diraacii min fawqi الsamaawaati kuliha wa min baطni taxti اlxuuti amdadtu raaxatii beydka idin sheega miya 67 beydka labaad fiiriya beydka labaad wuxuu ka bilowdaa beejka 67 weye wanidيtu ya jiilaan udkul walaa takhaaf cuطaytu liwaa min qabli ahli اlcinaayaati 67 number 2 beydka labaad ذراacii min fawqi الsamaawaati kuliha wa min baطni taxti اlxuuti amdadtu raaxatii diraacii dhudhunkaygani min fawqi الsamaawaati kulihaa samooyinkao dhan buu ka sareeyaa o xaggii kore waan idinka jiraa wey wa min baطni taxti اlxuuti waxay ku leeyihiin waay markay hay-ada caalam ka hadlayaan baa kutubtii qaar kamida waxay qoraan 7 arlo biyaa ka hooseeya biyahana calaa dahri xuutin kalluun weyn dushii bay saaran yihiin wuxuu ku leeyahay dhulkan iska dhaaf biyahana iska dhaaf kalluunkaa weyn hoostiisana calaa cashayna ajataalla gacan dheeraan ninku diraacii dhudhunkaygu min fawqi samaawaati kulihaa samooyinka oo dhan buu ka koreeya wa min baطni taxti اlxuuti malaygaa hoostiisana baan amdadtu ku fidiyey raaxatii calaa cashayda saasaan u hayaa marka bilaxdatin soo idinma dhihin saama fitrig uga sii saasaan u dabagediya adduunka kada alcarshu wاlkursiyu fii طayi qabdatina 49 bay ku tili carshiga kursiga gacanteeda isaa ugu duuban yihiin wasamaawaatu matwiyaatu biyamiinihi ma garanaysaa baa la rabaa in lagu yidhahdo aniga weeye allaha lagu yidhi wasamaawaatu matwiyaatu biyamiinihi damiirkaas aniga ii soo celi buu rabaa inuu ku dhaho akhiiran maxaa loo soo gogol xaarayey waxaa loo soo gogol xaaray waxaadan filaynin beejka 69 tag
صدرك قدام بيتك قدام بيك كحجنا استاك أما وحنكو يرهدا كو لبا صدح بيتك قدام بيا أفرت قدام بيسان أخري دونا أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمري أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي لا إله إلا الله أنا الذاكر مثل ذكر عبادة الصمانية وحسية وأنيقة المذكور كان لحسينا وأن أنيقة ذكرا حسيتان كان للذاكر وحسية وحسية كان ذكر حسينا وأنيقة كانوا حسينا وأنيقة أنا الشاكر كالنعمة كشكرنا يا وأنيقة شكرا بالنعمة كشكرنا يا المشكور كالله شكرنا يا لوغ ما هاد عليا وأنيقة كما هاد علينا يا وأني كالله ما هاد عليا وأني أنا السامع كوحمقلا وأنيقة أنا العاشق كوحشعلاذا وأنيقة المعشوق كالله في كل مضمر قلبك استوى وأنيقة كوحشعلنا وأني كالله هنا وأني أنا السامع كوحمقلا وأنيقة المسموع كالله مقلي لفتي سنة وأنيقة في كل نعمة كستوى ساس درتين أنا الواحد مثل كلجي أو أنا الفرد كلجي الكبير لذاتي ذات يسوي وحي سيد أستحي أنا الواصف الموصوف كتلمامي إيا كاللغو تلمامي بوانيغا شيخ الطريقة طريقة الشيخ الدنيا وحاسو هذا الورنية وحن محوية مفاتة دقبة وما قلت مدهن هذا القول هذا الكاف فخرا فانيغا معها وإنما وحاوي أرنتو أتى الإذن أقلان شائي يمد حتى يعرفون ضدك سي أغادان حقيقة قبط يدني أغادان أن الواحد الفرد الكبير بذاته أحد لا إله إلا الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنما إلهكم الذي لا إله إلا هو الواحد القهار انت لوت المامي قل لمن الملك اليوم بوده لها انسان كسو لغوما سو دين كتابك جوابتي با halka laga tagay lillahi alwahid alqahharti ana alwahid alfard alkabir kaga jawaabay ilaahi yahay halkaas oo kuma cadaysan soo idin madhin waxani waa diin kale islaam ma aha islaamkuna waa kabari islaamna ma wada socon karaan laba isku labadana nin wada fahansan ma wada rumayn kara soo idin ma dhihin waxaan oo dhan maxaa keenay baab ka dambeeyo bahar buxuur la yiraahdaa jira ashar baad markuu leeyahay baab kayna lama geliyo karo bahar buxuur waaye insha Allah waa inuu habeen dambe waa gabagabadii habeen dambe bahar buxuurka waxaan ka dambeeyo kitaabkana ku yaalana habeen dambaan idin fasiriyo oo miiska idin saari sidee buu ku noqday kii xusayay iyo kii la xusayay sidee buu ku noqday kii jeclaa iyo kii la jeclaa labadaba insha Allah mawcidkeena hadii alla yiraahdo inta ajri lagu sinto waa inuu habeen dambe bahar buxuurka subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk